بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم waxaan marka hore salaamaya dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaanka bacdi waxaan rabaa inaan ka hadlo maanta xaaladaha amniga Puntland dhammaan ummadda Puntland waxaan u soo jeedinayaa marka hore inay ilaashadaan amnigooda iyo wadajirkooda iyo midnimadooda marka labaad waxaan rabaa inaan u soo laabto caasimada Puntland ee Garowe oo ah halbowlihii Puntland dawlad iyo shacab arrimo saaka ka dhacay magaalada oo siyaalo khaldan loo buunbuuniyay oo aan dareemayay laga yaabo in saxaafadda qaybtay sii deysay oo siyaalo kala duwan looga hadlay anigu saan xoogaal u ahay waxa dhacday arrin dad gaar ah ka shaqeeyeen fidmadeeda qayb ka ahaayeen sida rag saraakiil ah oo dawladda ka mid ah oo ciidamadii rag saraakiil u badan oo ilaa 50 iyo dheeraad gaaraya oo ah kuwii difaaca Puntland ku jiray kuwii shaqeynayay oo gobolada kala duwan ka shaqeynayay in la ruqseeyay wax lagu ruqseeyana la aqoon taasina ay kaliftay inay ka bacdi dib inay iyaguna sameeyaan khaladkii lagu sameeyay khalad ku saxaan labadaba waxaan leeyahay nimankii markii hore waxa ka shaqeeyay oo biliiska oo shaqadiisii qabsan waayay laga rabay magaalada waxaad arkaysaa dhulkii oo la boobayo oo lagu habsanayo waxaad arkaysaa moobiladii oo la furanayo shaqada biliiska iskale shaqadoodii ma ay qabsan mid kale oo aysan lahayn bay galeen saraakiishaas biliiska waxaan ku eedeynayaa oo hawsha ka dambeysay inay hawl aan maanta loo joogin oo dalku dagaal ku jiro oo dalku kala guur ku jiro doorashadii dhowdahay in ay sameeyeen waxaan loo baahnayn kuwa saaka fawdada sameeyay oo qaybta ciidamadii tagayna iyagana waxaan leeyahay meeshan waa magaalo madax khaladkii saaka aad sameeyeen mar dambe ha u noqonina waana uga mahad celinayaa markii saaka aan ugu tagnay meesha aniga iyo odayaal kale oo ay naga yeeleen inay isaga tagaan meeshaas iyadoo aan dib weyn ka dhicin xabadaha la isku riday adigu dhaawacyo yar mooye wax saasi kama jirin ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa dib ka dambaysa inaysan ka dhicin hawshaasi ay sidaas ku dhamaato dadka reer Puntlandna iyo dadka reer Garowe casuumada waxaan u soo jeedinay haday simada tahay haday nabaddoonada tahay haday siyaasiyiin tahay haday ganacsatada tahay dhalinyarada haweenka dhammaan saxaafadda nooc kasto ay tahay bulshadeynta in nabadgelyada la ilaaliyo iyo midnimada iyo wadaniyada barwaaqada maanta aan haysano wadanka waxa ka jira waa la socotaan nabad baan haysanaa horumar baan haysanaa magaaladana waa magaaladii ummadda Soomaaliyeed oo ka dhaxaysay saldhigii Puntland weeye cid gaar ah ma leh cid gaar ah ma fawdayn ka dhoo arintaas waxaan leeyahay ha laga wada qayb qaato nabadgelyada hana laga wada shaqeeyo inagoo dhan nabad baa ina deeqda ninkii nabadgelyo xuma ka shaqeeya inagoo aan reer hebel u eegayn baan farta ku fiiqayna biliiska haddaan ku soo laabto shaqadii laydiin idmaday waxay ahayd amniga inaad sugtaan waxay ahayd dadka bagcadaha boobaya oo tuugada ah iyo jirida moobilada furata inaad wax ka qabataan ma ahayn shaqo aydinaan lahayn inaad gashaan maantana in ciidan la ruqseeyo ama lisas la yiraahdo intaas oo nin baan ruqseynay oo dalka u dhintay oo u dhaawacmay oo u soo dhibaatoobay oo wali difaacaya oo aan mushahar qaadan macnaha ka daadinayeen dhibtay ku geysanayaan maxay tahay awalba lacag qaadan meeyeen wadaniyad bay dalka ku difaacayeen waa arrin khalad mana aqbalayno arrinta